guddiga qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo baraarujinta bulshada ee marka magacooda loo bedelo afka qalaad loo yaqaano National Anti-Corruption Commission Steering Committee iyo ururada haweenka ee ka jira ismaamulada gobolka Waqooyi Bari ayaa kulan xog isweydaarsi ah ku yeeshay magaalada Garissa. kulankan ayaa salka ku haya habkii loo soo afjari lahaa musuqmaasuqa isla markaana bulshada loo siin lahaa talooyin ku qotoma hoggaan wanaaga. xog isweydaarsigan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxa ugu sarreeya guddiga qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo baraarujinta bulshada iyo sidoo kale xubnaha ugu sarsareeya ururada horumarinta haweenka. kulankan ayaa intii uu socday waxaa diiradda lagu saarayay habkii ay dumarku kaalin lixaad leh ooga qaadan lahaayeen soo afjaridda musuqa maadaama ay dumarku yihiin lafdhabarta bulsho kasta. madaxa fulinta guddigan ayaa STN ooga warbixiyay kulankan iyo wixii uu ku saleysnaa. Na siku ya leo tutakuwa na akina mama hapa leo na kesho kutwa ili kuwafunza wawe wakielewa ufisadi ni nini, ufisadi uko na sura gani, ni madhara gani ufisadi uko nayo katika jamii na ni hatua gani zinaweza kuchukuliwa ili kupigana na kuzuia ufisadi. Ukweli ni kwamba ufisadi hukera sana wamama, wao ndio wako direct na kawaida hawajui la kufanya. Kutoka hapa tukishamaliza kuzungumza na wao ni kwamba wataweza kupigana na kuzuia ufisadi. waxaa sidoo kale ka hadashay Qureysha Maxamed oo ah madaxa horumarinta haweenka ismaamulka Garissa waxayna sheegtay in ay hooyooyinka oo kaliya arrintan soo afjari karaan. waxaan dhahnay musuqmaasuqa horta hooyo unbaa bilaabi kartaa oo istaajin kartaa maadaama waxaan ay soo socotay oo laga soo shaqeeyay waxaan isku daynay anagoo hooyooyinka countiga idilka socdaan inaan isku imaano oon ka hortagno oon ka dagaaltamo sidii musuqmaasuqa loo joojin lahayd. dhanka kale marwada koowaad ee maamulka Mandera oo ka mid ahayd guddigan ayaa carabaabisay in siyaasadda laga saaro adeega bulshada. musuqmaasuqa dib badan buu wadanka u keenaa wadanka markuu musuqmaasuqa ku dhisan yahay badanaa wuxuu noqdaa maskiin. marka masaakiinnimada wax sidaan kala dagaalami lahayn baa maanta one of the topics oo maamooyinka la baraaye. musuqmaasuqa lacala hadduu ka dhacay countiga ama meelaha ka dhacay meelaha ay kaga camal fali lahaayeen. booqashada guddigan ay ku imaadeen magaalada Garissa ayaa waxay noqonaysaa booqashadii lixaad si ay u wacyigeliyaan bulshada. Cabdiwali Cabdi Maxamed, wararka STN, Garissa.